السلام عليكم سو dhawaada asxaabta ku xiran channelka Ekeson kuna soo dhawaada qiso qiimo badan balse inta aynan bilaawin muuqaalkeena fadlan hadaad nagu subscribe subscribe dhagan belalkana furo nin iyo haaskiisa ayaa waxa jirtay in hiliyada laga nasto shaqooyinka ay habeenada qaarkood muqaayadaha u asha tagi jireen habeenada kamid ah isagoo ninka isu diyaariyay in haaskiisa uu ka heeyo ayaa waxa dhacday in marwadii ay ku tiri gaalyaheeda waxaan ka codsanayaa halkii aan anigu ku raaci lahaa in aad azumto oo aad ka hayso la soo ashayso waqtina la soo qaadato hooyada ninkii ayaa faray wuxuuna ku yiri allaha ku barakeeyo hana ku abaalmariyo marwadeydii sharafta badnayd waa runta inta uga badan shaqada adiga iyo aruurta ayaan ku mashquulay dabadeedna wuxuu durbadiiba wacay hooyadii wuxuuna u sheegay inuu soo marayo wada lugaynayaan soona wada untaynayaan hooyadii ayaa rumaysan weyday in wiilkeeda oo inta badan ayna waqti isku helin in afkiisa ka magasho kelmadahan qiimaha badan waxaana hooyadii ka buuxsamay farxad buu soo maray way wada lugeeyeen unta soo wada uneen hase yeeshee hooyadu ma danaynayn goobta ay tagtay iyo untada waxaana ugu muhiimsanaa waa in wiilkeeda uu naxariis iyo ihtimaam u muujiyo dhinaceeda uusan hilmaamin uusan dayacin hooyadiis xitaa isagoo mashquul ku ah shaqadiisa haaskiisa iyo aruurtiisa waxayna la qaadatay waqti wanaagsan taas oo ugu dhignayd maalin ka mid ah kuwa ugu farxadda badan nolosheeda markii ay soo noqdeen ayuu weydiiyey hooyadiis in ay faraxsan tahay waxay tiri wiilkeygiyow allah ayaan ku dhaartay aad baan kugu faraxsanahay adiga iyo reerkaadaba wuxuu ugu jawaabay insha Allah waqti kale ayaan sidaan oo kale sameynaya waxay tiri maya hooyo azumaada xigta aniga ayay iga iimaanaysaa insha Allah wuuna ku waafaqay toddobaad iyo bilo ayaa ka soo gudbay waxaana dhacday in hooyadii ay hanuunsatay kadibna ay geeriyootay Allah u naxariistay iyadoo uu aad uga murgooday geerida hooyadii maalmo kadib ayaa waxa dhacday in muqaayadii ay wada tagi jireen hooyadii xilligii ay nooleed ayaa maamulkeedu uu soo wacay waxaana loo sheegay in azumaad ay u taalo isaga iyo haaskiisa qarashka azumaadana mar hore la bixiyay isagoo yaaban ayuu isweydiiyay idda bixisay dabadeedna haaskiisa ayay israaceen waxaana markii ay muqaayada yimaadeen loo dhiibay warqad looga tagay waxayna ku qornayd sidan wiilkayga qaaliga ahaa allaha ku abaalmariyo waxaan kugula ballamay inaan isla goobtan kugu azumo balse mashquul badan baad ahayd balantaydii ayaan fuliyey adig iyo haaskaaga ayaan idin azumay haddaan annaga is arki weyno du'adayda ayaa idinla jirto